waaska guud ee beelaha ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibraahin ayaa si ballaaran maanta loogu soo dhaweeyay magaalada Gabiley iyo magaalada Wajaale isagoo ku sii jeeda magaalada Hargeysa. Beesha ciise ee ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaanu kala hadhin soo dhaweynta salaadinta beesha reer Qisaaq. Ugaaska guud ee beelaha ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibraahin ayaa booqasho rasmi ah ka helay madaxweyne Mustafa Muuse Biixi Cabdi oo si weyn uga helay martiqaad rasmi ah. Ugaaska guud ee beesha ciise ayaa la filayaa inuu joogi doono 3 cisho booqasho magaalada Hargeysa. Ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibraahin ayaa u kurgalaya xaaladda guud ee beesha ciise ee gobolka Salal, isagoo la filayo inuu soo gaaro magaalooyinka Saylac ee beesha ciise caanka ku tahay. Asi kastaba aatee, ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibraahin ayaa soo dhaweyntiisan waxaa ka qayb qaatay wasiirada beesha ciise ugu jira xukuumadda Soomaaliland, xildhibaanada, aqoon-yahano, salaadinta beesha reer Qisaaq. Ugaas Mustafa Maxamed Ibraahin ayaa ah ugaaska Soomaalida ugu akhlaaqda wanaagsan uguna dabeecadda wanaagsan. Beesha ciise iyo salaadinta ayaan maanta u kala hadhin soo dhaweynta ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibraahin ayaa la filayaa booqashadiisu inay qaadan doonto muddo 3 cisho oo ku joogi doono magaalada Hargeysa. Ugaas Mustafa Maxamed Ibraahin ayaa ka mid ah ugaasada beesha ciise, isla markaasina geyiga Soomaalida aadka looga qadariyo, ilaahayna ku manaystay akhlaaq iyo dabeecad wanaaga. Si kastaba aatee, beesha ciise ayaana u kala hadhin soo dhaweynta ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibraahin, ayaguna hadima sharafeed ku leh hoteelada waaweyn ee magaalada Hargeysa. Ugaaska beesha ciise ayaa la filayaa inuu wax ka bedelo isaga ku dhaqan Soomaaliland, isagoo markaasi galaya arrimo u gaar ah beeshiisa uu aabbahay ka yahay oo haybadda Ilaahay u siiyay inuu aabbo u noqdo. Si kastaba aatee, ugaas Mustafa Maxamed Ibraahin ayaa ka mid ah ugaasyada Soomaalida ee caanka ku ah, Ilaahayna karaamo iyo akhlaaq uu ku siiyay. Ugaaska beesha ciise ayaa isagu ah ugaaska ugu karaamo badan Soomaali. Magacaygu waa wariye Cabdisamaad, wararka beesha ciise.